ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن أصحابي ميل كستوات جوكتان كسو دوادا برنامج كينا هبين نمو وهبين نمو 4 وخميس ايسو قليسو تاريخ دونا ايكو بيغان تاي صدح يلاباتن بشة جولاي سنة كالاباكون يشان يلاباتن هذا برنامج كعاو حنو كسو قد برينا واربحنا عصوب او سوكر دي تريو انتينو كلا مغنين تركيغا اولا شيغي سفر سميسان او عقلي inuu ciidan rabo inuu ku geliyo gudaha Suuriya Israa'iil iyo Mareykanka oo ilgooniya ku haya oo dareensan kaartada uu Turkigu doonayo hadaba maxaa ka socda Suuriya sideese Turkigu u doonaya inuu ciidamo ku geysto gudaha Suuriya tafaasiil iyo warbixino laga qoray sheekada ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa warbixino ku saabsan aqalka cad ee Mareykanka oo soo saaray war ku saabsan safarka Witkoff ee Yurub iyo cidda uu kula kulmi doono iyo rajo laga bixinayo in heshiis la gaaro xabad joojin ah iyadoo la rumaysan yahay in Netanyahu iyo ragiisu ay soo dabceen kadib markii abaanduulaha ciidanka Israa'iil uu ka warbixiyay xaaladda ciidanka ay ku sugan yihiin Israa'iil haddaba tafaasiil ku saabsan xaaladaha soo kordhay barnaamijkan idinkugu soo gudbin doona qaybaha ugu dambeeyay barnaamijkana waxaan idinkugu hayaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo caawa war soo saaray ku wajahan Mareykanka iyo Israa'iil qodobadaas ayaynu barnaamijka caawa ku faahfaahinaynaa inta aan ku jirno wixii soo kordha ee warar ahna waan idinla socodsiin doonaa joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo qodobka ugu horeeya barnaamijka waxaynu ku faahfaahinaynaa Turkigu maanta wuxuu si rasmi ah u sheegay in Suuriya ay kaalmo weydiisatay hadaba kaalmadaasu kaalmo noocee waaye Turkigu muxuu u samayn karaa dawladda Suuriya hadaba maalmihii la soo dhaafay madaxda Turkigu waxay aad ugu celcelinayeen iyaga iyo mas'uuliyiinta Carabta kalaba in ay ku midaysan yihiin Carabta iyo Turkiga inaan la kala jarjarin Suuriya oo Suuriya ay sii ahaato hal dawladood halka dawladaha reer galbeedka uu horkacayo macalinka weyn iyo Israa'iil iyo la sheegayo inay wadaan qorshe ah in la kala jaro Suuriya oo 4 loo qaybiyo qayb Kurdish qayb Sunni qayb Shiico iyo qayb koonfurta nimanka la yiraahdo Druuska la leeyahay Israa'iil ay taageerto marka Turkigu laakiin wuxuu leeyahay haddii la isku dayo kala qaybin Suuriya ka dhacda waxaan u aragnaa amniga qaranka Suuriya in Turkiga in meel looga dhacay hadaba dhowr jeer wuxuu isku dayay inuu ciidamo fara badan geeyo inkastoo ciidamadiisu qaybo kamida ay joogaan haddana meelaha laga rabo weli ma gaarsiisna marka qaab caynkee uu ku tagi karaa marka waa inay u yeerto dawladda Suuriya xataa haddii ay u yeerayso kaalay ciidan ahaan noogu taageer hub noo keen ma dhihi kartaa maya farsamo kale aan rabaa in lagu tago marka aqliyad badan socota adduunyadan isgaadgaad haddaba wakaalada wararka ee Turkigu leeyahay ee la yiraahdo Anadolu ayaa maanta warbixin ay qortay waxaa la leeyahay Ankara waxay sheegtay Suuriya waxay naga codsatay taageero rasmi ah in Turkiga uu siiyo si loo xoojiyo awoodeeda difaaca wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaa maanta Arbacada waxay sheegtay in maamulka Suuriya uu ka dalbaday si rasmi ah Ankara in la xoojiyo awoodda difaaca si ay uga hortagaan kooxaha argagixisada ah oo ugu horeyso Daesh haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay warbixinta wasaaradda gaashaandhigga waxa la sheegay inay markaa ka dambeysay in Turkiga uu dadaal badan ugu jiro sidii loo taageeri lahaa dawladda Suuriya waxaana la sheegay in Turkiga ay u tagi doonaan oo ay halkaa u diri doonaan ciidamo sameynaya tababar iyo la tashiyo si loo taageero loona xoojiyo awoodda difaac ee ciidamada dawladda Suuriya iyadoona laga jawaabayo codsiga xukuumadda Dimashq Turkiga marka wasaaraddiisa gaashaandhigga maxay leedahay waxay leedahay dalab rasmi ah ayaa dawladda Suuriya naga soo gaaray
dalabkaa marka muxuu yahay inaynu caawinno cid kasta oo meel rabta inay u marmarsiyoto daacish iyo ajaaj waxaana la galayaa daacish waa lagu marmarsiyoodaa laakiin hawlo kala socdo marka waxaa leeyahay si ay isaga dhiciso daacish iyo qolooyinkan iyo ayaa maaragtay aan hawshaa u qabanaynaa haye marka hore waxaan u diraynaa khubaro iyo ciidan tababar sameeya istishaariyiin iyo tajriib iyo niman sameeya tababarka iyo la talinta iyo waxaasaa loo dirayaa kuwaasaa baabuur gaashaamo wata kuwaasaa xarumo military u baahan kuwaasaa howlo badan u baahan hadda ka hor meelo la yidhi turkigaa soo degi doona ayay israa'iil duqaysay haddaa la socotaan halkaan aan kasoo tabin erabooro iyo oo loo diyaarinaya ciidamada turkiga marka hadda israa'iil weli ma ka baxday hawshii ma ka baxin suuriya maanta turkiga soo warkaan ma sheegin maanta hadduu askar soo diro israa'iil waa qeelinaysaa meeshaa ma soo geli kartid ileen marka sheekadaasu way karkaraysaa turkiguna hadda wuxuu taagan yahay meeshii ugu dambeynta naga joogtaa macnaha dowladda suuriya dalab rasmi ah iisoo gudbisa miyay hor istaagi kartaa ma dhulkaanaa leedahay suuriya iskale marka halkaas xaaladdu marka waa xuntaa la leeyahay sheekadaas marka waxay ka mid tahay wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay maanta oo 4 saacadiya lasoo dhaafay weliba oo dhanka turkiga ka yimid dhanka kale aqalka cad ee maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey safarka ergeyga madaxweynaha maraykanka ee bariga dhexe ninka la yiraahdo Witkoff waxaan idin sheegay wuxuu aadayaa layiri Yurub markuu tago arrimaha wuxuu kala hadli doonaa mas'uuliyiin gargaarka iyo waxa kan iyo sheekadii markaan idin sheegayay oo dadka falanqeeyaashu ay lahaayeen dhigkar hadduu gargaar ka hadlayo Yurub gargaar ma hortaagnay ma Israa'iil la hadlo ma Israa'iil tago muxuu Yurub ka soo doonaa sheekadii marka way qasbatay sheeko waxay noqotay warbaahintii oo dhan iyo wixii laga hadlayo marka aqalkii cad waxa leeyahay marka uu isku xishooday wuxuu leeyahay ninka Witkoff la leeyahay Yurub wuxuu u tagayaa arrin ku saabsan wuxuu la kulmayaa madax caraba mas'uuliyiin caraba meesha uu ku ballansaday uu tagi doonaa mas'uuliyiintaas halka kula shiri doonaa ee carabtu wadamay leedahay dooxo u socdaa nitiraadeel dooxa baa tago carabtu meesha ugu baarsamay Yurub lagu doonaa sheekadaas iyaduna way qasatay aqalka cad barba beelo u saarina baashi marka waa wareert haddaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay la qoray Witkoff ayaa la sheegayaa inuu kula kulmi doono Yurub mas'uuliyiin ka socda bariga dhexe iyadoo laga wada hadli doono hindisaha xabad joojinta aqalka cad ee maraykanka war uu soo saaray goordhow ayaa la sheegay ergeyga maraykanka Steve Witkoff inuu la kulmi doono isagoo Yurub ku sugan mas'uuliyiin ka imaanaysa bariga dhexe si looga wada hadlo arrinta xabad joojinta Gaza iyo sidii maxaabiista loo sii dayn lahaa la haysto marka sheekadaas iyaduna waa sheeko caqli waa ninka meeshuu aaday dad maartay mas'uuliyiin halka kula kulmi doona bariga dhexe hindisaha ninkan marka waxa laga sugayaa dooxa ugu shifidsan tahay oo laga wada hadlayaa arrinta marka Yurub wuxuu u tago waa qalada le marka meeshaas dood kulula ka taagan dhanka kale waxa leeyahay xogaa wada hadaladii rajay leeyihiin nimanka Israa'iiliyiinta kuleelkii soo karay Gaza askartii waa isku dhaxyaacday dhibaatooyin fara badan laga soo sheegaya kuwa markay guryahooda tagaan waashay kuwa isku kaadsha waxa la qoraa hada aragto Al Jazeera way yaabaysaa askartii waa wareereen marka abaanduulihii iyo Netanyahu ayaa shiray marka Netanyahu iyo abaanduulihiisa ciidanka waa taliyihii ciidanka ayaa shiray haddaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay Al Jazeera ay caawa ka qortay shirkaas hay-adda wararka u faafisa Israa'iil waxay sheegtay Netanyahu inuu ku yiri inuu doonayo in la soo dhameeyo dagaalka oo inta xabad joojinta socoto gudaheed laga shaqeeyo sidii dagaalka Gaza la isaga soo dhameyn lahaa Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu waxa la sheegayaa inuu doonayo dagaalka in la dhameeyo inta xabad joojintu socoto waxaana la sheegay warkaasu dhanka wasiirada Netanyahu ay ka laga helayaa iyaga sheegay wuxuu u sheegay ninka la yiraahdo Smotrich iyo Ben Gvir in dagaalka lagu laaban doono haddii aan wax hadaf ama
ujeedada dagaalka la gaarin ujeedooyinkii dagaalka aan la gaarin laakiin dhanka kale waxaa la sheegayaa arrinkaasu waxaa ka dambeeyaa la leeyahay in ciidamadu ay la kulmayaan dhibaatooyin aad u daran kuwa Gaza ka dagaalamaya asbaabo kala duwan ayaa arrinkaa looga sheegay Netanyahu waxaana u waramay abaanduulihiisa ciidanka ninka la yiraahdo Eyal Zamir oo u sheegay xaaladda ciidanka abaanduuluhu wuxuu sheegay isagoo u waramayay Netanyahu xaaladda ciidamada dhulka Gaza ku sugan inay tahay arrin aan la iska indhatiri karin dhibaatada ciidanka meesha ku haysata ciidanka dhibka meesha ku haysta dhibaaka caadi ma nimanka muqaawamada oo Gaza jooga niman caadi ma nimankaas waa laga qayliyay marka abaanduulihii wuxuu leeyahay waxa meesha ka jira waa kaas adiga dagaalka sii wad ama si adeeg ku taala hadda marka waxa leeyahay odagii nimankiina waa la hadlay dagaalkiina xaaladda askartana meel xun maraysa marka xaaladdu halkaas maray marka waxa leeyahay dib wada hadalladu hadda xoog la saaro Israa'iil inay soo dabacdo oo laga yaabaa laakiin niman macangagin way Netanyahu iyo ragiis ciyaara ku tanaasula ma nimanka ka soo horjeedo Hamas leeyana niman tanaasula ba dadka masaakiinta oo shacabka iska dhibaatoona maahan labadooda wax inay nimankan yahuuda tanaasulaan maahan horta Hamas warkooda waaba cad yahay qodobadaan dhiibeen waxay intaan ma la soo dhaafi karo waa la aanan karnaa leebis laakiin wax kale oo ka dhaxay ma leeyahay marka sheekada halkaas ay maraysaa qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan oo caawa war soo saaray